dhowr iyo 20 sano u dambeeyay magaalooyinka Soomaalida ee aadka u korayay xawliga ku dhismayay waxa kamid ah magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland hase yeeshee waxa la sheegay inay ku yartahay dhirayntu oo intii magaaladu fidaysay aan dhir badan laga beerin magaalada Maxamed Xasan Dhalo ayaa warbixintan ku eegaya Garowe mid kamid ah magaalooyinka xasiloon ee Soomaaliya sidan ayaa dubuhu u sanqaraya sanad walba oo dhismaheedu u siyaadaya waxaana laga sameeyay magaaladan jidad laami ah oo dhex mara kuwaas oo u kala jahaysta xaafadaha magaalada laakiin sida ay u dhismayso caasimadda Puntland ee Garowe uma dhir badna mana hirgelin hadday jireen dadaallo lagu cagaarinayay qofkii kalada ugu jirayna ma rabo inuu dhir beero oo waraabiyo gudoomiyaha Garowe Axmed Saciid Muuse waxa uu qabaa inaan dawladda hoose dadaal yareysan magaalada waxa jira xoolo u badan ari xoolahaas oo dhirta magaalada lagu beero cuna oo u diida inay koraan oo kobcaan caqabada ugu daran waxay tahay dhirta lagu beeray banaanada badanaa waxa beerta dawladda dadkii marka guryahooda ay ku hor yaaleen ayaa waxa laga yaabaa inay geedka inuu baxo iska daayay inay wax taraan inay iyagu ay dhibaato u geystaan saabuun ku shubaan saliid ku shubaan golaha deegaanka ee Garowe waxa ay sanadkii hore soo saareen xeer mamnuucaya in magaaladan ari dhex joogo xilliga oo la urushay in ka badan 5,000 oo neef oo u badnaa riyo laga saaray magaalada si dhirta magaaladu u nabad gasho laakiin dadkii lahaa ariga magaalada laga saaray wali ma arkaan isbedel ku yimi caasimadda Puntland marka anagu dadkii xoolaha laga qaatay waanu ka mid nahay haddii xoolihiina la ka qaadayna wax dhir oo noo soo baxay iyo wax noo faa'iidoobay midna ma lahan mid wax sii khasaaray iyo wax naga sii dhacay maana wax noo kordhay ma lahan inkastoo xoolihii go'aamadu ka soo baxeen wali dhex yaacayaan Garowe maamulku waxa uu qorsheynayaa in uu tallaalo dhir hor leh waase markii kol kale riyaha la raafo sida uu ku waramayo gudoomiyaha Garowe Axmed Saciid Muuse waxaan rabnaa insha Allah sanadkan 2022 inaanu dhir aad u tiro badan ku beerno guryaha wadooyinka iyo xataa dhulalka bambanaan oo hadda maaragtay jardiinooyinka loogu talagalay iyo dhulkii dhirlaanta ku dhacday oo dhirtii ay ka guurtay si marka arinta loo gaaro waxaa noo qorsheysan ariga magaalada ku haray in dhammaantiis laga dhammaystiro magaaladuna ay noqoto mid magaalo ah ay noqonin xiraari oo xooluhu ay u soo daaqtayaan waa goor galaba waxaanu Maxamed Axmed oo kamid ah kooxaha u ololaya deegaanka kula kulanay mid kamid ah jidadkii ugu dambeeyay ee Garowe laga hirgeliyay isaga iyo saaxiibadii waxa ay halkan ku beereen dhowr geed oo ay gacanta ku waraabiyaan mana qabaan in ay jirto caqabad hor istaagi karta dhiraynta magaalada kama daalo jirgaamadu waxay noo saaran yihiin wax weeyaan gaariga gadaalkiisa noo saaran yihiin subaxdiina waxaan ku soo qaadnaa biyaha gacantan ku soo qaadnaa galabtiina sidaas la mid aan ugu soo qaadnaa si ay labada xilliba dhirtu ay aminka noogu bulaasho aan ugu helo waxa weeye in dhirta aminka noo kobcdo oo aan magaalada noogu dhigto magaalo cagaaran runtii waxa weeye waxaan rajaynaynaa inaanan ka daalin hadii ilaahay qorshahan ilaa aan gaaro hadafka noo degan oo ah inaan dhulka Soomaaliyeed hagaajino khaasatan hadda waxaan joognaa caasimadda Puntland ee Garowe inay noqoto meel cagaaran oo aad u qurux badan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland dhismaheedu waxa uu ballaartay wixii ka dambeeyay 1998 xilliga oo loo doortay in ay noqoto caasimadda Puntland lama soo oga inta ay qaadanayso Garowe cagaaran Maxamed Xasan Dhalo Garowe